xildhibaan barkado wadigu dadeeya noqo haday dalka iyo dadkuba daacad ku yihiin dadkana wax u qaban karo aan ku doonaynaa. waa munaasabad ballaadhan oo si weyn loo soo agaasimay taasoo bulshada beelweynta Madhibaan ee gobolka Togdheer ay ugu mahadnaqaysay cid kastoo ka qayb qaadatay guusha uu gaadhay xildhibaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun kaasoo noqday xildhibaanka ugu codka badan 82 xildhibaan ee ku guuleystay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee dalka ka qabsoontay. Suldaan Daakir Xasan Khaliif cuqaal iyo waxgarad kale munaasabada ka hadlay waxay u mahadnaqeen cid kastoo taageertay xildhibaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun. Iimadeena koobaad waxa weeyaan inaan u mahadnaqno oo aan dareensiino inaan ku faraxsanahay soo dhaweynayno guusha ballaaran ee uu gaadhay mudane xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun. waxaan u mahad celinaynaa ugu horeyn komishanka qaranka oo doorashada la qabtay si qiimo badan oo hufan oo cadaalada oo xor iyo xalaal u qabtay. waxaan u mahad celinaynaa xukuumadda oo runtii doorashada dhacday ee isku sidkan oo aan qarankeenan mooyaan meel kale ka dhicin dhiirigelisay kharashkana bixisay 70% iyaduna aad bay u mahadsan tahay. waxaan si gaar ah oo aan ka gabasho lahayn ugu mahad celinaynaa guud ahaan qarankeena Soomaaliland oo maanta inoo hiiliyay oo deer in badan ina xanibay inaga jabiyay oo codkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo cududoodii intaba inagu taageeray. albaabka waa inoo furmay hadday hawshii bilaamatay. waxaan doonaynaa inaynu wax kasta oo aan u baahannahay sidaa uu Barkhad u gaadhay inaan u gaadhna inaguna insha Allahu tacaala. gobol kasta oo Soomaaliland waa inaan xildhibaano ku yeelanaa waa inaan shaqaale ku yeelanaa waa inaan golaha wasiirada wax ku yeelanaa. aan u baahannahay sidaa uu Barkhad u dadaalay ee uu samray ee heerka uu ku soo gaadhay maanta dhamaanteen baynan gaadhno. waxaan ugu baaqayaa bulshooyinkana ka soo jeedno dhammaanba waxaan leeyahay waa inaan noqonaa dad himilo leh waa inaan noqonaa dad hiigsi leh waa inuu nin walba hiigsadaa inuu mustaqbal yeesho waa in la istaageero waa tacliinta iyo ganacsiga ugu fara badan ummadda waxay ku hormarto. labadaana waa inaan ka run sheegnaa inaguna oo ganacsi fara badanna abuurnaa oo noqonaa dad runtii hanka ay maanta leeyihiin u noqdo inaynu noqono dad yawga ugu qiimaha badan qarankeena ku jirno insha Allahu tacaala. tacliintana waa in awlaadana barnaa oo ayna awlaadana aad ugu dadaalnaa diin ahaan iyo maadi ahaanba oon dhisnaa si ay qof walba isku anfici karayo. Barkhad guushu gaaray horta u hambalyeynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku asturo. ilaahay ka asturan leenahay qaranka idmaday ummadda shacabka Soomaaliland ee runtii u codaysay gaar ahaan magaalada Hargeysa bay runtii u mahadsan tahay. waxa kale oo halkan ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Abdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo kaalin weyn ka qaaday Barkhad Jaamac Xirsi Batuun inuu xagga gaadho. aan u mahadnaqaynaa Barkhad qof kastoo cod siiyay oo u codeeyay iyo qof kastoo runtii af ku amaanay ama af ku taageeray iyo qof kastoo adin ku taageeray iyo qof kastoo qalbiga ka taageeray intaba u mahad celinaynaa. waxaan u mahad celinayaa saddexda xisbi qaran ee xukuumaddu u horeyso ee hawsha midha ka dhaliyay oo doorashada quruxda badan qabsoonto iyo mahad leh. waxaan kaloo u mahad celinayaa dadweynaha heer Hargeysa ee u codeeyay Barkhad guusha u gaadhay ee ilaahay gaadhsiiyay Barkhad Xirsi Batuun waan uga mahad celinaynaa. waxaan u mahadnaqayaa qaranka Soomaaliland dhammaantiiba waxaan u mahadnaqayaa xusbiga wadani ee haanu ka tirsanayn ee Barkhad soo saaray ee musharaxa Barkhad siiyay ee halka u sareysa maanta la dhigay baan isagana u mahadnaqayaa. beerahan afarta haamooda ee 70kii ku midoobay magaca la yiraahdo danwadaag oo ay kulmisay dhaleeyadu oo ay kulmisay dantu maanta albaabkii ka xidhnaa wuu u furmay Barkhad baana furay oo jabiyay. guusha maanta Barkhad gaadhay waa fadliga Ilaahay iyo deeqdiisii waxaana ku mahadsan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada reer Maroodijeex. guusha iyo jaaniska ay maanta bixiyeen maanta ma jiro waa la soo afjaray haybsoc wax la yiraahdo waxa dhaliyay oo guusha
qiimaheedu intaa leegyahay keenay guud ahaan dadka ku nool gobolka Maroodijeex anigoo aan kala qaadin si guud iyo si gaarba waanu ugu mahad celinaynaa xildhibaan barkado adigu dadeeya noqo haday dalka iyo dadkuba daacad ku yihiin dadkana wax u qaban karo aan ku doonaynaa barkadow danyartiyo agoomaha gargaaru fidi xuryaanada caawiyo camadow gargaar qabyaala lama doonaye qarannimaan rabnaa inaynu midowna baahan maanta doonaya jaamac Salibaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco.